آدي آد بني سلامينا waxaa kaleeto dhala jooga maanta oo xafiiskan ma sha Allah walaad diirati wadanka Turkiya magaalada Ankara xafiis waxa uu aan caadi ahayn oo ma sha Allah markaan soo galo waxaan xasuustaa nacam Soomaali meeshaan leh farxadeeda ilaahay abwaankii waxaa nala jooga Cabdiraxmaan Sheekh Xasan iyo Abshir Bashir Abshir marka Bashir Abdi waa nin ganacsada Bashir waa nin ganacsada waa nin diaspora waa nin reer Canada waa nin waay araga waa nin ma sha Allah waa nin oday ku dhaafsan macnaha wada reer ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله والعيش والعيش اللي هذا بشير صومالي ما شاء الله ما قاعد اسوي سيرش ولا هو معنيه يسميه معنيه كتصرف وقبها مو معنى كذا ولاش الاستعادة لهم فحصنا قلبتنا سلوى فلانة أنا هذا كفر صح أنا ولا ذكر عن ورده صح صومالي بس صح عنك صومالي بس عادي يعني أنا صومالي dadkan hore ay maanta mucaarada tahay dadku bar Soomaaliya oo walaalkii daraska guud joogay intuu rasaasay badadiisna hadaba min muddo usoo shaqeeyay dalka ku yahay ana ku soo bartay garan soo dhameeyay halkaas waxbarashadiisa ku soo bartay kabacdi qalabku ka dubay kabacdi qurbaha ya ku tayran cali asaati wax ka shaqeeyay midnimada Soomaaliyeed marka aad waxaan ku faraxsanahay برنامج بدنا نسعى عن دولة الشتاء. أنت سواسي لا فعل مسؤول أقول لكن ما تصبر تاجر ما شاء الله ما شاء الله. أول كان السوق كلته. أرجع على تصف صومالي ومسميه وعن الهذري أفضل مني. الله نداري. هذا صومالي الله نداري. بعد جينا أنت سولوني وما عبد البحر له. نريد من له. ما شاء الله. ما ضل ما يستلم. ما شاء الله. ما حد في عصام هذول. من النبض عن تاجر شعب مني. weliba dadka aniga aqoontiisa waxaan ku sheegayaa Soomaalida aad ugu yaqaan wax kale kuma ganacsan magacaas dinta sharafta hadana aan karan jooga qalabtan nasiixa una sii weeshay ma sha Allah marka aad aad u faraxsan bashir marka waxaad iga dhawaajisay hadda dalkii wax ku soo bartay dalkii wax ku soo bartay aniga si weyn baan waxba ma aragtay aan xasuustay dalka wax ku soo bartay marka leedahay nacam waxaad xasuusinaysaa dalku inuu yahay nacam dalkayagi oo haddii aan qof madaxweyne ka yahay ama qof xil haya markaas asaga uusan lahayn laakiin dalku uu yahay dal adoo ku soo bartay sababta ugu soo bartay bashir ku soo bartay ilaa waxaan ku soo bartay waxbarashadii ilaa jaamacad aan ka dhameeyo ilaa dugsi oo saddex dugsi sare inta baa ku soo ما شاء الله saas inta hadana madaxdii waxbarashada ka mid ah ee wadanka dadkii ugu sarreeyay madaxda صح ee wasaaradda waxbarashada صح صح ninkii waa garanaya asaateen markii barkacaween ama maamulka soo bisay kuma xirna marka qodob kuma xirna ya sidii dimuqraadiyadda Soomaaliya saas bay yahay marka mar walba waxaan aad ugu mataqaan ugu orolaya dadka aqoonta leh iyo dadka soo koraysa in jiilasha soo koraya inaan lagu qaban wada aan saxsanayn wadada wadaniyada lagu aqoon bashir waxa kale oo jirta dadka diasporada oo dibadaha u soo qoftay marka xalaas oo antay Soomaaliya dhalinyarada waxay ku leeyihiin diasporada waa nacam ma jeclin amal waay baasaboorka kale wata laakiin waxay ilowsan yihiin dadkii Soomaaliya waxa yara badbaadiyo Ilaahay waa badbaadiyo laakiin waxa yara badbaadiyo ama dad soo dhoofiya ama dadka biila waxa laga yaabaa maanta in taas qoys biisho ama taas qoys biila ama taas qoys biilo marka waxay yara hilmaansan yihiin nacam sida dadka diasporada ay dadkooda wax qareen ayay hilmaansan yihiin arrintaas horta bidda lagu sheegay wax tarka hooyay taa wadankii wadaladii mataqaana inaga burburtay dadkii dad baa u soo baxay dadkii ku harayna dhibkii iyo shidadii ma aysan noolaadeen haddii dadkaan soo baxay marka biilasha diraya waxyaabaha qabanayo oo waxyaaba ay ku noolaayeen ayagu marka fikrad kaleeto waxaa jirta oo dad kaleeto influencer oo dadkii kaleeto anigu waxaa ka soo horjeeda mar walba ka soo horjeedi jiray kuwa hadda ku dhashay wadanka qoriga waqti dagaalka u barbaaray iyo kuwa ku dhashay qurbaha ayaga in la walaalayo mataqaana integration isdhex galaan in loo sameeyo sababtoo arrinta hadda ka dhawaajinaysa waa arrin jirto dad badan oo bishin garanaya xataa kuwa gudaha ka jira
oo shan baasabor wata ayaa waxay influence gareen mar walba dhalinaya inay diaspora dad xun yihiin waa dadka ayaga laftogeedii laga rabaa isku qiraya in dadka yihiin marka ma ahani waxa weeyaan waa nin walba caqligiisi aqoontiisi iyo garaadkiisu gaarta taasaan waxay aadan si ugu maalinaya marka abaan ku celin marka hadda isku maalinaya abwaankii baan kusoo noqonaa marka waxaan jeclaysta qofka mar inaan maaragtay abwaan cabdiraxmaan maanta waxaan la kulannay abwaanka soomaaliyeed waan isleedahay adduunka inta badan waa laga yaqaanaa soomaalidu way taqaanaa markii loo fiirsho heesihiisa iyo gabayadiisa iyo dhiirigelintiisa iyo abwaannimadiisa iyo maskaxdiisa ilaahay ha dhaafo idin bar allah idin dhaafo abwaan horta heesaa tirisay musig والله أبغى ترى بدي ولا معن وبسلام ورحمة نستحق هذه iyo مربارية شير أبشر أو كم إذا ساردي وحبرشة إفتن تيركي هو وإنا كم إذا أنا ما أنتظر كل ما ينستحق أو في الدنيا ده شرف بيتها وما أنتظر كل النوم مجال أنكرة ذلك تركيا كان هان حافظ كشركة اللي يرادوا بولد ريال استيت وآد سولوين ديران أنكرة كل النوم ذلك يعني مشان xafiiska furay ay yihiin dad aad u wanaagsan oo soo dhaweeyay Soomaaliyeedana ay la weyntahay oo dadkooda aad u soo dhaweeyay ay yihiin oo u mahadcelinayna soo dhaweyntii ay noo sameeyeen heesaha hadda u soo laabtay iyo suugaanta heeso aad bay u badan yihiin nasteexo balse mid ayaan hadda kaga dhacaya la yiraahdo Soomaaliya garaadlay Soomaalida dadka waxaan ka mid ahay aad u dhiirigeliyo jecel inay gubaabiyaan mar walba marka hees waxa jirtay yani markaan arkay Soomaalida midba mid ku dhagan yahay oo dhawr ka qanaynayo oo social media maaragtay niman u jawaabay oo dawladnimadii iyo qaranimadiiba ay baylaha noqotay beelbeel la isku mashquulsan yahay hees aan sameeyay baa jirta heesta waxaa la yiraahdaa Soomaaliya garaadlay waxaa qaaday Al-Ustaad Bashiir Cali Xuseen oo asna wasaaradii waxbarashada isla ahaydeen kooxda iftin oo nin qaali ugu ah saaxiib qaali ugu ah walaalan jeclahay ah waxay leedahay heestu Soomaaliya garaadlay garashada kaliitay gayigeeda oo xor gumaysiga ka jecelay qodobteeda maqan iyo gashigeeda ma ogey godkii lagu ridi lahaa gacmaheed ku qodatoy gumaadkii iyo xasuuqiyo geerida ku faanaay gafka ruuxa wada iyo gardarrada u heshaay geedtii maragooyaay gocandhana abuuraay go'day oo gam noqotay gaajadii iyo silic iyo gulufkii colaadaha goormaad ka bixiy oo garabdegi asaaga Soomaaliya guracaneey geesigeeda loogaay gurboodka iyo dumarkii iyo guurtideeda laayaay gacal kale ay roobiye gobolaysa jecelay golayaal bilaash iyo garwadeena badanay geeleeda oo dhalay gorf marka sidatoy gasin loogu deeqay gacmo hoose jecelay garawaantii cadawga iyo gaadiidkii nacabkaay go'day oo gam noqotay gaajadii iyo silic iyo gulufkii colaadaha goormaad ka bixiy oo garabdegi asaaga heestaas ayaa ka mid ah walaal ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله عبد الرحمن ما شاء الله ما أنت واحد كوكولنا حفيز كان كوكولنا كل تكليف كورم هو كوكيرا وسامة الحياة مش بتشوفنا مركا عبد الرحمن ما أنت واحد كوكول ما داوا أتهاي لو يرد حوجا أصلا عن ولا ما هي كبير وحن كارت على ذي مرة راتريس ذي حوجا عمر باب عشان كل واحد ترى نستاهل المهم بقى يقدر عايز لكن هداك كارت الصلاة هسبوك ولا رجعي ولا عشان ما رun ahaantii booska waxa la ragba rageedaay baash wax ku fiican tahay yani xilligeeda xilliga dhalinyarada ayaa dhalinyaranimada ayaa jacaylka laga hadlaa laakiin jacaylkii wadda wuxuu saaran yahay dhinaca wadaniyada dadka wadanka aad u jecel oo ka fakera oo dawladnimada jecel baan ahay oo dawlad ku noolka marka dhinaca dawladnimada ma wareegna jacaylka ma dhigaysan ما هو كوي ولا ترسان كولا waxaan ka xasuusto waa badan yihiin heesaha jacaylka oo aan tiriyay aad bay u fara badan yihiin marka mid ka mid ah haddaan kaaga dhaco waxaa ka mid ah kulley erayadeeda dhowr eray baan kaaga sheegay intaan jooga adduunkiiyo ifkaan hiilkaa sugayaay asxaankaad maanta samaysana abaalkii gudayaay il markii la egeeyo abuuruhu i dhammaysto ubaxaad saarta dushaydii oo hinkaagama baahni ugubna maaha jacaylo aadan iyo xaawa oo dhigiisii horeetii asaaskiisa lahay ay igu eegin xanuunka hees la yiraahdo ka mid ah waa badan yihiin golongol baa ka mid ah hees la yiraahdo galabtaan ku bartaan golongolay oo gaboonkii jacaylku igu dhacay garkii iyo jilbahan ku haystaa ee gacalo iga siib gantaalaha geesigii rag ku jiray ayaan ahay gabaahib cidlaha igu dirin oo gogolna nin kale ta u dhigin oo garaargan ayaan kaa furin gabdhaha kale maan damaaciyo oo guudkaagaa balag la ii sugay oo gooray noqotana geerida ka horteed genyuy waan kaa dur sugayaay gasiinkii diiday awgaay oo gadii cilmi boodharaan ahay oo gamina waayo oo gacaloy adigan goortii walba kugu hadrayaay
golol ugu doonanayaa oo guurtida reerkaan u tegayaa oo gabdhihii waa hore sidoodii baan geel iyo farda kaa bixinayaa garowshaan kaa sugayaa iyo inaad garabkayga noqotaay oo gurina aad ila yeglashaay oo guuleed aad igu curatahay gugaygoon aad u weynayn buu guudkaygu ciroobay awgaay godka aakhiraha i dirno go-aan baan kaa sugaya kasuu aad bay u fara badan yihin walaal macaan laakiin waa xilliyadii dhalinyarada lahaa hadda waa la gaboobay waa yeel baa layahay waalid baa layahay marka xoogaa anshax ahaan iyo ixtiraam ahaanba waxay ku fiican tahay inaan dib loogu laaban raad arooriyo dib looma qaada yidhahan soomaalidu saas wey maasha allah kelimad baan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo sida aan ku noqdo bashiir waxaad i sheegtaa social media aad ku jirto isticmaasho dad waxaa jira social media markii aan fiirsho waxaan arkaa dad aan ka faa'iidaysanay social mediaha si xun iyo si daran ku isticmaala siba dhalinyarada qaarkeed ma loo adigi karo dhalinyaro sharaf leh social media marka si aad ugu isticmaashaa waxaan u isticmaalaa waxna waa qoraa waddanka marka aan joogana si dalkayga macnaha messagekas wixii wanaagsan oo horumarka u leeyahay waxaan ka dhowraa wax xun oo dhan aan ka ilaaliyo dadkaan sacaynaya dadkaan isku gefiya iyo dadkaan mataqaana media isku talanteed iskaga dhigaya ma soo qaato qofna ma anigu macnaa ma talgaliyo anigu baa quruxda iyo heybadda iyo sharafta dalkeena hadduu nabad baa u noqdo inaan kasii wada wanaagsannahay waxaa u sheegaysa waxa weyaan mediaga waxaa la yidhahdaa bahawinta soomaaliya maasha allah bahawinta halkaas ka garanaysaa magaca bahawinta soomaaliyeed soomaali qofka hadduu yahay waa soomaali qabyaal marka erayga baan rabaa inaan labada nabadgooyo horta qabyaalad maxaad u aragtaa qabyaalad maxay tahay qabyaaladu ama anaaniyadu waa annaga ree hebela markii la fasira annaga ree hebela adinka ree hebela ayaga ree hebela soomaalina run ahaantii soomaaliyada dhan ba hal beel anu aragtida aan qabo yacni qofka soomaaliga ahi horta waxaan soomaali ku waaninayaa soomaalidu mahmaa waxaa jirta la yidhaahdo geel saad laguma helo saad geel laguma helaan haddaad meel cidlaa inta xero iska xeraysatid aad geel u yeryeertay hebla aasaayisid inaad geel yeelan doontid geel laguma yeesho ee dhaqash u baahan yahay waa inaad geel dhaqataay oo dhib badan aa martaa ama aad soo dhacdaa ama aad dhaqataa yani sida caadada soomaalidu ahaan jirtay ee geel ciyaar laguma helo dowladnimadaa ka dhigan dowladnimadu wax dowladda soomaaliya qof walbaa kuleeyahay dowladnimadiina ma raba si aan rabin haddii la yidhaahdo waristoosi wuxuu kuleeyahay annaga ree hebel ha naloo dan leey marka ummadda soomaaliyeed mid yar iyo mid weynba waxaan ku waaninayaa inay horta maskixiyan u xoroobaan qabyaaladda ay ka xoroobaan ay ogaadaan qofka walaalkooda oo soomaaliga hadduu dilo iyo hadday dilaanba dhiig walaalka alla ku geli inay tahay iyo dhiig sokeeye inay tahay ee aysan ahayn yani guul uu gaaro inaysan ahayn marka waxaan leeyahay qabyaaladda ha laga xoroobo qabyaaladdu aad bay u xun tahay diintuna aad bay uga hadashay waxan inay tahay diintuna waa sheegtay dhaqan ahaanna wax fiican maaha runaan laakiin qabiilku waa wax jiro ilaahay uu noo dhaliyey inaan isku aqoonsano xaqiiqdu sidaas waxaan yidhi raadiyo kaa looga dhacay waxaa weya qabyaaladu ya waa qiic weya dadka ku dhex jira marka qabiilkuna waa wax tacarufku oo wax loo dhasho weya marka qaybsiga wax la qaybsigo ayay qabyaaladu soo gashaa mar walba qabyaaladu marka waa midda dadka kala dishay weya ruuxa marka inuu qabyaaladaysi yahay oo rabana qabyaaladii wax ku warsadana xilka loo dhiibo ayuu qabyaaladaya xataa asaga laftiisa isqabyaaladinaya isqaybinaya waa qayb maasha allah waxaan kusoo gabagabeynaynaa bulshada soomaaliyeed waa salaamayna waxaan kusoo gabagabeynaynaa xafiiska maanta aan joogno gudaha reality waxa weeyaan waa shirkadda gudaha reality magaalada ankara waddanka turkiya qofkii guri uga baahdo qofkii alaab uga baahda waxaanu leenahay soo dhawaada aniga xataa waa soo xiriiri kartaa walaalkay bashir waa soo xiriiri kartaa sidaas iyo nabadgelya bulshada soomaaliyeed maxamed